haddii dad Soomaaliyeed ay jiraan oo damiir leh oo idaawanaya oo 27 ama 28 sano soo dhaafay khibrad u leh wixii wadankan uu soo maray waa inaan ogaanaa inaanan aqbalin wiil ama gabar dambe oo Soomaaliyeed inay marto dhibaatadaas oo kale waxaan leeyahay hay'adaha amniga qaranka ee dalka Soomaaliyeed ka shaqeeya meel walba oo Soomaaliya ka mid ah haddii aad u jeedo caawa dhalinyarada Soomaaliyeed halkan isugu timid waxaa dhibaateeyay dad ajnabi ah laakiin la shaqaysta dad Soomaaliyeed oo jooga meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa la rabaa hay'adaha amnigu inay ka shaqeeyaan sidii loo soo qaban lahaa kuwa carruurteena dhibaateeyay kuwa carruurteena ka dhigay saylad haddii aad Soomaali tahay oo aad adiguna la baxday magafe waa inaad ogaataa dawladda Soomaaliyeed inay tahay madaasho waa ka daba imaan doona waa lagu soo qaban doona waa laga jaasayn doona maalin baana cadaaladda lagu weergooni doona diilaayaa waxaan leeyahay kuwa dhalinyarada oo wadankiina ku soo laabto waan ogahay anaa soo maray da'diina oo markaan da'diina la ekaa qaxay laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego hamiga iyo saraha adduunyada aad filimada ka daawataan oo aad rabtaan inaad aadaan oo aad u qaxdaan idinku iskama lihidina wadan walba oo aad tagtaan waxaad rabtaan inaad u tagtaan inaad leedinkugu dulqaato meesha aad u aadaysaan in leedinkugu dulqaato waa meel aad idinku lahaynina waa inaad joogtaan meesha lagugu dabaaldego meesha lagugu dabaaldego oo maalinta aad soo laabatay gudoomiyihii gobolka iyo gudoomiyaasha degmooyinka wasiiradii ra'iisul wasaarihii ay ku imaanayaan jacaylka ay ku qabaan awgeed waa inaan wadankan wada leenahay waa inaan Soomaalinimada sharaf u aragno waa inaan aaminsanahay dalkeenu dal wanaagsan inuu yahay waxaad tihiin dhalinyaradii dalkan dhisanahay waxaad tihiin kuwa ciidanka noqon lahaa macallimiinta noqon lahaa dhaqaatiirta noqon lahaa injineerada noqon lahaa dabdamiska ka shaqayn lahaa waxaad tihiin kuwii madaxdii mustaqbalka Soomaaliyeed noqon lahaa bari waxaad tihiin kuwa jaamacadaha ka soo bixi lahaa oo la wareegi lahaa xukunka mustaqbalka haddii idinku aad ka carartaan nolosha xun oo dalkiina aad ku aragteen waa inaad isweydiisaan yaad ka sugaysaan dalkiina uu idin dhiso idinkaa 20 jir ah oo xoog leh oo murqihiina xoog leeyihiin oo maskaxdiina caafimaad qabta idinkaa dibadda soo arkay oo ogaaday inaanay qabiil iyo kooxaba idinka daba imaan karin idinkaa ogaaday in qolqola aanay xabsi idinka soo dayn karin idinkaa soo ogaaday in sida keliya ee qof lagu badbaadin karo ay tahay in qaran la dhiso